الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد ولك الشكر. والدي ولا البوائد سلام يا الله يدين بركي الله ينوذ بركي ميل كستي وكستان جوجنه. الحمد لله رب العالمين. وحنا كفاية وحنا كقنيمي سنينا هو يدي أمهات كاني سلسلة دي إنه سعته بركي سنيد ويحفسه وأهيد هو يدي أفراد إنه كسو بحني إلهي رالها كالنقضة حارسة القرآن إلهي مارته هو يا خديجة وإنه كسو هذا هو يعيش هو يسوده هو يعيشه هو يحفسه هو يدي شناد بإنه سو قارني إلهي رالي لما أنتو ذبا كالنقضة زينب بنت خزيمة الهلالية أم مساكين أي وضطان نبينا عليه الصلاة والسلام وحيري وحلا يأمري بيري إن نقول هوانك جنة بس هوانك وهوانك جنة هوانك نبينا نقول سنة عليه السلام أمهات كانوا وهوانك جنة الله أكبر إن الله فريسنا وكشيكينا وبرنا وفافنا ولنا ولنا وإلهي خير إن السيء إلهي أنكم مهدنا الحمد لله رب العالمين إله ما هديس كلا اللهم لك الحمد ولك الشكر هو يدان وحي أهيد بسم الله اللهم صل على محمد سينة بنت خزيمة بن حارث قبيل كيدن وحو هلكا وحو قلايا معركة قيس ابن معركة قيسيد أي أهيد هدنا عامرية هلالية أي أهيد هو يداد وحل به جري هند بنت حارث مالها قاركود محل غيابا هند بنت عوف إنا كو أركتو هو يداد إسلانتاس إسلام نمديدا كل ميلنا كما إنتان وح رغرغا يا أردين نمديدا كما أرق معرتي علمادو كهذا سنة ما أرق إنا إسلانتي لكن إسلانتا محل يرمي تقانين إسلانتا وحل يري وإسلانتي أدون كأجو حديد كفي عنيد وايه ويلا ليس ضهيال ونقطة تقريبا قبلت دبجة راي سديد مية دشال يري أفر با وحي كنقدين قبل هذا مؤمنات إلهي الرسول رميسن وهل النبي الله وضنونا عليه الصلاة والسلام قبلها سيتو هو يدين زينب بنت خزيمة كمدا هو يدين وحا كمدا قفت اللي يراد ميمونة بنت حارث وإنو إيمان دونتو حاسكي قدمي النبي نقول سدي عليه الصلاة والسلام اسكو هو يحاين هو زينب بنت خزيمة إيه هو ميمونة بنت حارث اسكو هو يحاين إسران تاسع شيء إسران تاسيتو وحي هو ميمونة سيرة دي إنو كو إيمان دونتا inta dad ay maaragtay runtii ay islaanta asu ay la xididay laakiin waxay habaryar u ahayd hooyadan Zaynab bint Khuzayma hadda la taagan yahay gugasheedii inuu fadhinaa gurigeedii inuu marti u nahay inuu ka hadlaynaa ilaahay raalliha ka noqday gurigii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam xujraadkii qolalkii degayanayeen ummahaadkeena oo masjidka ku hareereysnaa nabiga calayhi salaatu wasalaam hooyadan Zaynab bint Khuzayma waxay habaryar u ahayd Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu warda waxay kala habaryar u ahayd maaragtay Khalid ibn Walid radiyallahu ta'ala anhu warda ilaahay raalliha ka noqdo dhamaantoodba ragaas oo dhanna maaragtay nabigeena calayhi salaatu wasalaam hadda waxa weeye ilaahay rabbi subhanahu wa ta'ala wuxuu u doortay inay maaragtay noqoto sawjadii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam hooyadan Zaynab bint Khuzayma masaakiin baa la dhihi jiray magacani wuxuu u baxay hooyadii masaakiinta iyadoo Maka joogta ayuu u baxay hooyadan Zaynab bint Khuzayma iyadoo Maka joogta oo dhalinyaro ilmo markay soo barbaartay dadka masaakiinta u naxariista oo maartay dadkii dumarka garoobada masaakiinta ah caruurta yaryar dadka adoomada oo halka lagu liidayay oo rag iyo dumar balaha iyo caruur balaha bay u naxariisan jiray masaakiinto dhan bay gacan qaban jiray waxbay siin jiray cunto dhar waxay u hesho bay u naxariisan jiray siin jiray xilligii islaamka bi'ithadii rasuulka calayhi salaatu ka hor inta islaamka ba ilaahay ku irsaaqin oo islaamkan ina siin ka hor xilligii jaahiliga ah ayay iyadu ahayd masaakiin loo bixiyay magaca cajiib waxa sadaqadeedii iyo khayrkeedii ilaahay muxuu ku siiyay waa iyada noqotay islaamnimo uu ilaahay siiyay wax kastaba ilaahay uu ku galladaystay sidoo kalena ilaahay uu siiyay rabbi subhanahu wa ta'ala inay noqoto ayaama cimrigeeda xidiyadii ugu dameeyay xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo nabigu uu maaragtay gacantiisa shariifada
uu ku duugo ku dhaqaaleeyo ku daweeyo. marka waxaa dhacday hooyadan Zaynab bintu Khusayma Allah ka raali ka noqdo reer Maka ahayd halkaasay tay maartay ku noolaayeen. waxaa guursaday markay soo barbaartayba nabiga ina adeerkiisa alayhi salaatu wasalaam oo la dhihi jiray Dufayl ibn Harith ibn Abd al-Muttalib ibn Abd al-Manaf oo nabiga ina adeerkiisa wuu furay baa lahaa. markuu furay yaa guursaday inay qof wanaagsan ahayd oo aan la sii dayn karin. waxaa guursaday walaalkiis oo ahaa oo nabiga isaguna ina adeerkiisa alayhi salaatu wasalaam Ubaydah ibn Harith ayaa guursaday ibn Abd al-Muttalib. Ubaydah iyadoo isqaba ayaa ilaahay islaamkii nuurkii islaamka u yimi. nabiga alayhi salaatu wasalaam dadkii u horeeyay oo saxaabada u rumeeyay ayuu kamid ahaa saxaabiga jaliilka. ayaduna sidii bay nabiga ku raacday alayhi salaatu wasalaam oo ku rumaysay. ilaahay raalli ka noqdo. sidaasay Maka ku joogtay ayadoo awal masaakiinta dhaqaaleyn jirtay haddana khayrkii halkaasi kasii laba laabtay ilaa ay usoo hijroodeen magaaladii Madiina. Madiina markay yimaadeenna saxaabiga jaliilka wuxuu ka qayb galay dagaalkii maaragtay Badr ayuu ka qayb galay sanadkii 2 hijriga. wuxuuna kamid ahaa saddexdii nabiga alayhi salaatu wasalaam raggii jifadiisa reerkiisa ahaa oo reer Abd al-Muttalib ahaa. Xamse Allah ka raali noqdo sayyid shuhada iyo Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu warda iyo Ubaydah ibn Harith saddexdii ragga oo nabiga la adeerkiisa labadii wiil oo ilma adeertiisa raggi ayuu kamid ahaa. saxaabigii marka meesha ku soo dhaawacmay oo maartay la dhaawacay ayuu ahaa halka oo nabiga alayhi intii lugta ka dhaawacmay muruqa maartay dhiigiisa xididkii boodaya nabiga alayhi salaatu dhabtiisa oo lagu seexiyay nabiga ii keenay ii soo dhaweeya dhabtiisa oo nabiga ku seexiyay alayhi salaatu salaam isagoo dhabta nabiga ku jiifa ayaa saxaabiga jaliilka oo marna walaalkiisa in adeerkiisa marna saxaabadii rasuulka alayhi salaatu saabiqiinta halkaas ayuu ku shahiiday oo ku dhintay. Allah ka raali noqdo. kadib markii ciidadii ka baxday oo la soo noqday kadib ciidadii ka baxday rasuulkeena alayhi salaatu wasalaam ayaa doonay oo guursaday hooyadan Zaynab bintu Khusayma Allah ka raali noqdo. waxaa la 400 oo dirham ama 500 oo dirham 400 oo laha ayuu ku mehersaday nabiga alayhi salaatu wasalaam 12 qiyadood iyo xoogaa riiga dahaba intaas ku mehersaday rasuulka alayhi salaam 400 oo dirham taqriiban. gabdhihii rasuulka alayhi salaatu iyo xaaskiisa 400 oo dirham ilaa 500 oo dirham ayaa lagu meherin jiray oo nabiga ku mehersan jiray alayhi salaatu wasalaam. yaa guriyihii nabiga alayhi salaam xujraadkii yaa jooga hadda hooyo Sawda hooyo Aisha hooyo Xafsa. qoftii shanaad ayay noqotay markii hooyo laga soo bilaabo Khadiija Allah ka raali noqde. way soo dhaweeyeen guri ku qabsanyay daris la ahayd hooyo Xafsa gurigeeda iyadana loogu qabtay qolkeedii laana masjidkii nabiga alayhi salaatu wasalaam markaa tagtid hadda yani ajiib markaan ka hadlay arintan ajaa'ib rabbina yani subhanallah way ii sawiran tahay run ahaantii inay dhinaca bidix markii rawdada dhinaca dumarka aad rawdada joogto minbarkiina gacanta midig buu ka qabanaya maaragtay xujraadkina dhinaca bidix bay ka qabanaya marka halka taagantahay rawdada ilaahay haynoo celceliyo intaan tigina Allah geeyo rabbi subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin. hooyadan marka gurigii afraad oo xujraadkii umahaadka ayay kamid ahayd oo gurigii afraad oo la diyaariyo halka laga diyaariyo hooyo Xafseen isku dhaganaayeen oo jaar ahayeen qol ahaan qolkeedu uu ku dhaganaa. qof waxay aad u qabow aad u degan akhlaaqiyadkii hooyadeena Khadiija Allah ka raali noqdee ayay ahayd qofta hooyadeena Zaynab bintu Khusayma. qof waxay ahayd cajiiba aad u xasiloon u degan oo raxmad badan oo naxariis badan oo maartay sida masaakiinta ugu naxariisanaysa ka arkaysa khayrkeeda halkii bay ka sii waday. intaasay Madiina joogtayna ay masaakiinta gacanta u fidinayso dhaxoogeeda ku sadaqaysanayso maartay fahankeeda maartay xoolaheeda kulli ay ku bixinayso. guriga rasuulka alayhi salaatu wasalaam guri aad u qabow oo u degan ayuu ahaa gurigeedu shanqar aysan jirin. waana qofta kaliya la yiri xagga haday noqoto xasiloonida iyo deganaanshaha iyo u dhawaanshaha iyo shabaxaada booskii hooyo Khadiijo ku xigtay ayay ahayd nabiga booskii u taagmay alayhi salaatu wasalaam. raaliya ayay saalixada oo dayibada oo mubaaraga oo cibaadadeeda iyo khayrkeedana ku mashquulsan ilaahay aad ugu dhow rabbi subhanahu wa ta'ala.
ثم markaa kadibna rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam. hooyo Zaynab bintu Khusayma sanadka uu guursaday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagu tilmaamaa bil ramadaan inay ahayd. hijraduna ay maraysay markaa 31 bilood ay maraysay. 31 bilood ayay maraysay. 31 bilood ay maraysay hijradu. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay la noolayd baa la dhahaa 3 bilood. waxaa la dhahaa waxay la noolayd 5 bilood. waxaa la dhahaa waxay la noolayd 8 bilood. 8 bilood baa ugu badan. 8 bilood bay la noolayd baa la dhahaa. 8 biloodna raxmadda iyo khayrka iyo qaniimadaas iyo wanaagaas ayay nabiga kula noolayd calayhi salaatu wasalaam. nabiga wax axaadiisa kama aysan warin hooyadeen Zaynab bintu Khusayma, allah ka raali noqde. sida hooyo Khadiijaba aysan uga warin, allah ka raali noqdo. hooyadeen Zaynab bintu Khusayma ilaahay raali ka noqdo rabbi subxaanahu wa tacaala jalla fi cula. 8 bilood bay nabiga la noolayd. marka muxuu guursaday 31 markay maraysay hijradu. 39 markay maraysay way xanuunsatay hooyadeen Zaynab bintu Khusayma, aad bay u xanuunsatay. nabigu calayhi salaatu halkaas ku daweynayay, ku hayay, gurigeeda kaga warhayay, ku dhaqaaleynayay. ilaahay raali ka noqdo rabbi subxaanahu wa tacaala. bishii waxay dhimatay baa la dhahaa bishii rabiicul maaragtay aakhir ayay bishii rabiicul aakhirkeedii ayay dhimataa la dhahaa, iyadoo hijradu ay marayso 39 bilood in hijradii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. nabiga salaatu janaasa ayuu ku tukaday oo markaa waa la sharciyeeyey. xilliga hooyadan Khadiija ay dhimanaysay lama sharciyeenin. xaasaska nabiga calayhi salaatu wasalaam labada ummahaadkeena ka hormaray waa hooyo Khadiijo, allah ka raali noqdo, iyo hooyo Zaynab bintu Khusayma. haddii lagu weydiiyo labadaa hooyo ayaa nabiga ka hormaray calayhi salaatu wasalaam. hooyadeen Zaynab bintu Khusayma rasuulka calayhi salaatu wasalaam asagaa maaragtay ku tukaday oo duugay. ilaahay raali ka noqdo, nasiibka iyo khayrkaasi heshay. sadaqadeedii iyo maaragtay samafalkeedii waa ka halkaa darajiisay. waqti yar ayay nabiga la noolay. siiradeedu ma dheera, ayada ma badna. intaas way inta laga soo guuriyo. sababtana waxa weeye inta waqtiga yar ee la qaadatay nabiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin waqti barakaysan. xaaskii nabiga haweenkii jannada ayay ka mid tahay. adduunkana xaaskiisii, aakhirana xaaskiisii rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. sharaftaasayna heshay in nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu maaragtay ku tukado. hooyadeen Zaynab bintu Khusayma hooyadeed haddaan ka dhaho oo halkan maaragtay aan islaantaa dhashay maaragtay islaan cajiiba, islaantii ugu xididka fiicnayd ayay ahayd islaantaasu. run ahaantii islaantaas waxaa la yiraahdaa waxay la xididay 2 jeer bay rasuulka la xididay calayhi salaatu wasalaam. waxay la xididay waayada dhashay hooyo Zaynab bintu Khusayma iyo hooyo Maymuuna. 2 jeer ma waxay kaloo la xididay islaantaas oo Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ardaa. oo Abubakar yuu guursaday, wuxuu guursaday maaragtay Asmaa bintu Umays oo iyadu ay dhashay. oo Jacfar ibn Abi Talib ayay isagana la xididay. oo Jacfar allah ka raali noqde Asmaa bintu Umays buu qabay. Asmaa bintu Umays markuu maaragtay ka shahiido uu dhintay dagaalkii Mu'ta, waxaa guursaday Abubakar baa uga dameeyey. Abubakar wiil bay u dhashay, Jacfarna 3 wiil ayay u dhashay gabadhaas ita Asmaa bintu Umays saxaabiyada jaliilka ah. Uthman markuu waxaan dhilahaa Abubakar ayay u dhashay wiil, Jacfarna 3 wiil ayay u dhashay Asmaa bintu Umays. Asmaa bintu Umays markuu ka dhintay Abubakar yaa guursaday allah ka raali noqde khaliifati rasuulillah sallallahu alayhi wasallam markuu dhintay Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wardaa, oo asaguna amiirul mu'miniin noqday. 2 amiir ayay guursatay gabadhaas oo maarta khulafadii islaamkana kamid ah, khulafa ar-raashidiin. rag lagu dayanay tusaalaha inuu ahaa bacda rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ugu horeeyay. waxay asagana u dhashay 2 wiil baa la dhahaa. waxa kaloo la xididay rasuulka adeerkiisa calayhi salaatu wasalaam. 2 adeer oo usoo islaamay nabiga calayhi salaatu islaamka soo galay adeeradii oo soo yani ilaahay bay u hogaansameen, يعني سو إسلامي ودين تقاتل رسولك عليه الصلاة والسلام لا صدر إسلام كمان كودا
وحمزة الله كرع لنقضو قبي سلمى بنت عميس إيو عباس الله كرع لنقضو وأسقنا قبي عبد الله بن عباس أبيه سا وأسقنا قبي لبابة السقرة أيو قبي وقلنا شيء عبد الله ولاله سويلشي سعرورتي سلمبا عباس الله كرع لنقضي سيدو كليتو خالد بن وليد أي شيء ووليد بن مقيرة أي اللحديدي وخالد ولا شيء maaragtay rag badan marka oo carabti kamid ahaa ayagana ayaa sidaas oo kaleeto la xididay oo maaragtay ay xidid lahayd marka islaantaas waxa leeyahay islaantii adduunka soo martay ugu xidid fiicnayd waxaas oo dhan ayaa isku fuuqsaday rasuulka kaleey salaatu laba jeer la xididay marka hooyadeen Zaynab bint Khuzayma gabdhaha mu'minaadka afar gabdhood baa sabinkii nabiga kaleey salaatu ran joogay oo walaalo ahaa oo rasuulku uu ku tilmaamay walaalihii mu'minaadka ahaa وإن هو يدين إن ميمونة بنت حارث وإن وراشد إن معركتي سيد إن أسماء بنت عميس ووراشد إن معركتي إن لبابة وأم فضل وعباس قبي وإن معركتي ياوي وهو يدين ميمونة بنت حارث وهو يدين وحنديلا وأسماء بنت عميس وإن معركتي وسلمى بنت عميس وأم فضل وعباس قبي أهو لأنه هي زينب بنت خزيمة وكهر مرتي وأيضا لمتي لكن الله كرر لنا لكن أفرتا قبل هذا ولا عليه هذا هل مربي نبي عليه الصلاة والسلام لو ذا جوجين إن مرتي أيضا هو ميمونة والنبي قبه عليه الصلاة والسلام بحذا قبل هذا ولا عليه هذا يكون هريري سيهين وكل مرتي رجع جايف تله وذا قبانا ولبا آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أهلكيس أي وذا بدنا يعني حاسس وضع حين غير بركة يسمى عين مركا إلى إرعلها كالنقضو هو يدين زينب بنت خزيمة وكاسيت الله قبل قبله جنة يا إسلامتا يا قبلها سحابيات كأيقنا أن إلهي يقول رجيننا أيقنا هو ينكي جنة إلى إرعلها كوضا النقضو هو يدين مركز صدقاته إني عجيب تحي إله كل حراشوه إني عجيب تحي قلبي أن حرير لأن النبي جانا عليه الصلاة والسلام إلهي وحنا حريستا يرحم من في الأرض يرحمك من في السماء قلنا حريصو دتكللك جوجا أدينا قلنا حريصت متك السماء جوجا إلهي سبحانه وتعالى إلهي نوحي قلنا حريصتا الدوم دي سكوا الدوم ذا قلنا حريصتا أي قلنا حريصتا رب سبحانه وتعالى ولاجئ معروف كأتسمين يسو مالين أبوكوسو نقريا الدون كرواتكوه ليسا آخرنا واتكوه ليسا مساكين إننا نسيدا صالينا كربا وهوانكي جنة وإنا تصالي وحنو آخرينينو oo uga hadlayno oo u koolkoolinayno oo u baranayno waa inaynu dhaqankoodii dhaqan ka dhigano sida hooyadeen Zaynab bint Khuzayma ahayd hooyadeen Khadiija ahayd Allah ka raali noqdo aswaajtooda hadiiba ilaahay adduunkan kuugu talagalay guuru ku guuriyo jannadaadi ka shaqayso laana nabigeena kaleey salaatu wasalaam maalmaha kamid ah saxaabiyad jaliila oo timi nabiga kaleey salaatu wasalaam iyadoo arrimo kala hadlaysa markaasuu nabigu wuxuu ku yiri kaleey salaatu wasalaam halkaad ka joogtaa sawjkaaga gurigiisa iyo ahawshiisa iyo khidmadiisa markaas waxa ku tiri waan dadaalaabay tiri intii aan ku bashleyn karo waan ku bashleeyaa waxde bini aadamnimo iyo cajis iga reebay waan dadaalaa markaas yiri waxaad ogaataa ama dadaali lahayd ama dadaali lahayd waxaad ogaataa sawjkaagu ama waa jannadaadii ama waa naartaadii marka warrama meesha la joojiyay laana nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri haday gabadhu shanteeda salaadood ay tukato oo bisheeda ramadaan soonto oo farjigeeda xumaanta ka ilaaliso oo sawjkeeda ay adeecdo inay galayso maaragtay 8 ilbaabo jannada ilbaabkii ka doonta ay ka galayso balka warama acmaasha khayriga oo rasuulku inoo sheegay kaleey salaatu wasalaam ilaahay ku ka faa'iideysta Allah ka dhigo gabar kastana naftayda itiinaba cabsida ilaahay baan u dardaarmaya iyo inaynu ku dayano dadkii jannada loogu bishaareeyay sidaas ah inaga maxaa leena ka rabaa si laba laabna Soomaa ka kacna meesha Soomaa Allahu akbar say guryahoodii aakhiro gurigoodii ay u qurxinayeen aysan isdhiganin iyagoo ilaahay uu darajada gaarsiiyay haweenkii la doortay ahaa gurigii maaragtay ilaahay uu ka hadlay oo ilaahay uu rabbi subhanahu tahiray oo maaragtay ilaahay xumaan ka fogeeyay oo ilaahay maaragtay loo dardaarmayo inay kitaabkii ilaahay akhristaan waxyaalaha gurigooda lagu akhrinayo ilaahay ayadii suurada Ahzaab ku jirtay muxuu yiri ilaahay akhriya waxa gurigeena lagu akhrinayo ilaahay aayaadkiisa sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam akhriya oo ku noolaada inay akhriyaan oo ilaahay maaragtay caabudaan oo guryahooda ay fariistaan oo ay ku nagaadaan
inaga marka maantay inay gabadha muslimada ku fakarto dan iyo xaaje inay banaanka kasoo qabsanayso mooyaane gurigeeda inuu jannadeedii noqdo, laana gabadhu intay gurigeeda ku jidho khayr iyo nimco kama suulayso, raxmadda ilaahay baa ku jira. laakiin markaynu banaanka u baxno siduu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam, shaydaanku inuu qurxinayo banaankaba inuu soo dhigayo. hadday gabadhu soo jeesatana halkaa horaadka ah uu ka fuulayo isagoo ugu yeeraya maaragtay cadowga iyo shayaadiinta iyo ragga iyo fidnada ugu yeeraya. hadday sii jeesatana gadaal inuu maaragtay qaarkeeda dambe uu fariisanayo halkaa isagoo maaragtay ugu yeeraya, ugu dhawaaqaya maaragtay wixii maaragtay raggii iyo beladii usoo jeedin. marka waa ka marka gabadha waxaa la rabaa markay gurigaa ka baxayso, hadday baxaysana danteeda iyo xaajadeeda inay u baxdo iyadoo asturan, caraf aan carfo dharkeeda carfaynin, maaragtay farihii dahab iyo qurux iyo ku guruno cilaan intay ku gogoysay aan banaanka hadba taagtaagaynin, qosalkeeda iyo codkeeda aan banaanka laga maqlaynin, asturan, xishood iyo edab ku soconaysa. ilaahay waa isagii ammaanay qisadii nabi muuse calayhi salaam, gabadhii u timi inay ku soconaysay xishood iyo akhlaaq ku ammaanaysaas inaynu ku dayanaa la rabaa. dadkaas way dadkeenu ku dayanaynay oo layna ka rabo. marka inaynu gabadha gurigeeda hadiiba ilaahay uu la doonay inay jannadeeda shaqaysato ku sabirta ayaamahan adduunka. waxaa laga yaabaa walaalay waalid iyo walaalow, waxaa laga yaabaa darajo sare oo aakhiro ilaahay kuugu talagalay inaad ku gaadho gurigaasayto iyo sawjka aad u sabrayso iyo caruurtaada aad u sabrayso iyo inta kugu hareersan aad u sabrayso inaad darajaadkiisa jannada aad ku gaadho. marka waxaa kaa maraya iyo waxaad marayso inaad u sabirto ayaa layna ka rabaa. taasaana isu dardaarmayna. gabar saalixada baa waxaa layidhi maalin maalmaha ka mid a, weliba maaragtay sabanadan ayna ka fogeyna, baa waxaa layidhi gabadhaasayta ninkeedii ayaa waxaa layidhi dhibay runtii noloshii guriga ayay ku dhibootay taa layidhi. markay ku dhibaatootay ayay waxaa layidhi maalin maalmaha kamid a go-aan waxay ku qaadatay inay reerkanba iskaga tagto, reerahoodii aado ninkan iyo hawshiisa iyo dhibkiisa imtixaanka uu ku hayo. waxay markay soo baxday gabadhii, dadkaasoo dee dad qur-aankii fahmaya, inaga maanta qur-aanku akrinayna oo baranayna, laakiin tafsiirkiisii inkastoo baraarug jiro dhexdaha loo dhuuqsado weeye inaynu barano oo ku noolaano. marka ilaahay subxaana watacaala wuxuu qadaray rabbi jalla fi culaa gabadhaasiita markay soo baxday oo gurigeedii ay kasoo baxday habeen bay ahayd, bacdal maqrib bay ahayd. maqribka markii salaadii ayaa lagu jiray markaasiito. waxay maqashay masaajid bay soo agmartay. marka waxay maqashay masaajidkii iyadoo maaragtay sheekhii uu qur-aankii uu maqribkii ku tujinayo, laqad khalaqna al-insaana fii kabad. ayadaasi maqashay in insaanka laga abuuray, loo abuuray isaga dhan baa kabad, yani mashaqo adduunkan inuu imtixaan ku jiro, kabad yani maraaxiishaas inuu ku jiro imtixaanka nolosha, imtixaan kale inuu looba abuuray oo lagu abuuray mashaqada iyo imtixaanka uba imtixaaman yahay bini aadamku. maaragtay aayadii markay maqashay bay dhegaysatay, dhuuqday, waa dhegaysatay. waxay tiri wallaahi haduuba adduunkani uba lay abuurayba arinta yani mashaqada imtixaanka daartii imtixaanka ay tahay in arintaa lagu jiraba saas layga abuuray, maxay inaan u sabro weeye oo ku adkaysto intaan ilaahay kala kulmayo. gurigeedii bay usoo noqotay layiri, halkii bay dhexda dhuuqsatay, ilaahay isku xirtay, sabirtay. ilaahay jannadii gabadhaha geeyo, inagana allahayna geeyo, gabdhaheenana gabdha sidaa u fakera oo dhaha warheedhe armaabaa odagana hawsha iga haysatay iyo caruurtan iyo gurigan armaytay darajaadkiis jannada taan ku gaari lahaa. aadna ogaato markasta ilaahu wax ka weyn baad iga haysaa. arrin kastoo ku haysato ogow midkaa daran baa jira, ogow wax ka weyn buu alla ka hayaa. arrinta way kuu khafiifnaanaysaa. iyo inaad geerida xasuusanato, mashaqo kasta iyo hawl kastoo taagan adduunkan waa daartii imtixaanka, waa layna imtixaamayaa. inaad garato maaragtay in arrin ka weyni ay jirto, inaad geerida inaad xasuusnaato oo aad ogaato in la tegayo, in la dhimanayo, inaan lagu waareyn. caafimaadna laguma waaro, dherag laguma waaro, maaragtay wax kasta isbedelaya, waa laga baxaya. maalin uunbaad ka baxaysaa, culays kastana fudayd baa ka dambeeya. marka inaynu taa ku baraarugsannahay oo ognahay allayna ka rabaa, dhexda aynu dhuuqsano, odayaashan iyo caruurtan iyo guryahan iyo dariskan iyo arrimahana inaynu u sabirno. ilaahay subxaana watacaala intaan kala kulmayna aana u qaadano, wartana armay tahay tii aan jannada maaragtay ilaahay subxaana watacaala darajo sare igu siin lahaa, khayrna aynu rajayno. laana ilaahay subxaana watacaala
isagaa yiri maaragtay dadku ma waxay u malaynayaan maaragtay in looga tegay inay dhaheen kaliya ilaahay baan rumaynay aan la imtixaamayn aan la kala shaqshaqayn oo la kala saaraynin laana muxuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala annaga kuwii ka horeeyay iyaga ayaan imtixaan oo la kala saaray si ilaahay u muujiyo midka runta sheegaya iyo midka maaragtay beenta ay ka tahay iimaankaas iyo wixii uu sheeganayo oo banaanka loo soo dhigo ilaahay uu ogaado rabbi subxaanahu wa tacaala waxna waa waxa uu qornaa laakiin banaanka ummadii ay u muuqato oo la arko qofka inuu qof wanaagsan yahay iyo qofkaasi inuu qof xun yahay marka daarul imtixaan baynu joognaa waana ka tegaynaa ilaahay ku asturo adduunkan iyo aakhiraba allahina ku daro nafteydii tiinana cabsidii ilaahay baa u dardaarmaya arrintaa inaynu guryaheena guryo lagu soo hirto xasilooni jannadeena shaqaysana sidaasuu nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam odagani ama waa jannadeeni ama waa naarteeni haye hadda hawshaalkee ka qabanaynaa weeye sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri gabadhii dhimata iyadoo sawjkeedu raalli ka yahay jannada ayay maaragtay gelaysaa ilaahay ku ahayno ku daro hadday ina ka hormaraana iyagoo raalli inaka inoo ducaynaya yaa maaragtay haddii ayna ka hormaraana sidaas iyagoo inoo ducaynaya hadday inagu ka hormarnana inaynu noqono kuwa loo duceeyo waxaa la yiri subxaan allah dadka ina ka hormaray saalixiinta ahaa ninbaa waxaa la yiri xaaskiisa ayaa aada u dhib badnayd bari aad bay u dhibi jireen mashaqo imtixaan bay ku ahayd ilaahayna kama dhigo kuwa waxaa jira maanta carabkooda bismillaahi raxmaan aan laga nabadgelayn gacantii aan laga nabadgelayn qaylada yacni guryihii ka dhigay cadaab ilaahay kuwa ina kama dhigo kuwa gurigooda loo soo xiiso siday hooyadan sayna bintu khusayma hooyadan khadiija allah ka raali ahaayeen allah ina ka dhigayo umahaadkeena oo dhanba siday ahaayeen oo raalliyooyin u ahaayeen allah ina ka dhigo dhammaantood ma kala dhacaan laakiin waa hogaamiyaashii sooma kuwii lagu dayanaya way waxaa dhacday marka waxaa la yiri mar islaantan dhibka badan oo qaylada badan oo sidana maad maaragtay iska furtid wuxuu yiri ma furayo yiri ilaahu u naxariiso rajulka saalixa ma furayo buu yiri laana waxaan ka baqayaa buu yiri haddaan furo soo qof kale oo muslima walaalkaya kuma khaldamayo ma guursanayo sida uma dhibayso aniga ayaa laygu irsaaqo la isiya khayrkane waa ku sabraya ilaahay muxuu markaas camal inkaar baa qofkii ku dhacaysa soo ma ogid laana cimrigaaga xataa in la soo gaabiya laana xuur racintii jannada ku soo habaaraysa mugtah habaar baa kugu socdee jannadii qof laga soo habaarayo way qofkaas runtii gabdhow isjira haweenow isjira laana gabadha siduu nabigu inoo sheegay calayhi salaatu salaam gabadha xuur racinta jannada joogta naagta ninkeeda adduunkan ku dhibta halkaasay kasoo habaartay tiranaaya mar dhow wuu kaa soo tegayaa alla ku qabaye yaa allaha ku dilee faraha ka qaad waxa dhow inuu kaa soo ilaa adduunkana waa wax yar moogtahay waa harka labadiisa gal waxa dhow inuu kaa soo tagee naanooda faraha nooga qaad markaas anagu noo imaan doona raaxadiisaan soo gala marka dad waxaynu na xagga yaa loo fadhiyo xagga ragganaynu meesha adduunkanaynu gula nool allaha barakeeye innagana allah isu keen barakeeye kulligeenba ehelkeena caruuraheena muslimiinta kulligeenba ina barakeeye waa ragga xaggeer loo jooga yaa ragguna intaasay wiilasheena ku farxeen allaha wada barakeeye yaa allahu akbar raggeena yaa muslimiinta dhanba gabar wuxuu dhacayna xagga fadhiya gabdhaha xagga ka mid maahe weliba kuwa kasoo habaartamaya subxaanaka yaa ilaah anigu gabdhahaasan balla cajabaaba ragga nasiibkooda war annagana yaa halkaa nooga soo hiilinaya ilaahay baynu haysanaa hawalwalin yaa ukhtil muslima walaalahayaw hawalwalin ilaah baynu haysanaa nin ilaahay haystana ma walwalo rabbi baa xaqeena iloo ilaaliyey ilaahay waa ina sharfay kitaabu rabbilcaalamiin ayaynu halkaa ku xusanaa le yaa suurat nisaa dhayay ka hadlaysaa intee kitaabka ilaahay layna kaga waramay xaaladeena ilaahay maartay ku raalli ka noqda allahayna ku daro marka waxaa la yiri maalintii dambe dhimataa la yiri markuu duugay oo qabriga dhigay oo caradii ku rogay buu wuxuu yiri raggii meeshii jooga la dugo war dhageysta walaalayaalow markhaanti ka noqda islaanta muujada qabriga ku jidha waa furay saal yiri war maxaa ku hadlaysa tani ima daba kacdu yiri bal aakhira iyo igu daba kici buu yiri adduunkii iga daba reeba subxaanaka yaa ilaahayna badbaadi marka gabar yahay isjir fikir halkee ka taaganta warayso markasta odaga oo dhawarheedhe war walaalow iska kee cafi hooyadan Caayisha allah ka raali noqday waxay tiri allah u naxariistay tiri gabar habeenkii intay gogasho markay timaado sawjkeeda intay gacanta saarto tiraado wallahi ya Caayisha asraarta يعني marka laga waramay taariikhdeeda ay sidii saaraxada yimada u ahayd arrimahaas xiriir ah cajiib ilaa qoftu kunis baa u qarsoonayd yaa dheel rasuulka kaleey salaatu xabibadii rasuulkeena kaleey salaam uma noqonto qalbigiisa ugu dhaweyd ugu jeclaa una rag hortii ka qiray arinta inuu bini aadanka ugu jecel yahay
rasuulka calayhi salaatu wasalaam boos bay ka deganayd, ilaahay raalli ha ka noqdo, jannadiina allahna kula kulmiyo. marka waxa dhacday marka waxay tiri hooyadan Caaisha hadalkeeda usoo noqday, allah ka raalli noqde, waxay tiri gacanta intay saarday sawjkeeda tiraado hurdo kuma indha kuulanayo, kuma indha qabowsanayo hurdo ilaa adigoo raalli iga noqdo mooyaane. haye hadda gabdhow dhexda hala dhuuqsado, ha ka qaniimaysano arrintaa markastaba inaynu arrintaas laana nafta meelay inoo soo jirta ma ogin. sidoo kale in maaragtay iyadana maaragtay aynu markastaba maaragtay raalli ahaanshaha iyo maaragtay inaynu cudur daaranayno, maaragtay inaynu raalli garanayno, inaynu ka fikirno jannadeena, inaynu shaqaysano, ilaahayna allahayna ka dhigo kuwa aan aswaajtooda cayn bal amaana oo maaragtay niyadda u dhisa, oo maaragtay ku booriya inay xalaal soo shaqeeyaan. gabdhaheeni salafka oo saalixiinta waxay ahaayeen sawjkooda markuu iridda ka baxayo subaxdii kuwa dhaha war walaalow gaajo waa u sabri karnaa, xaaraan ha noo soo shaqaynin, inaynu inaguna bidaana saalixa inaynu noqono kuwo hoos saaxiib hoosaad oo maaragtay khayrka iyo wanaagga jannada u jiida, oo khayrka u horkaca, oo maaragtay horyaal ugu noqda sadaqada iyo maaragtay alla ku xiraanta, soonka iyo cibaadaadka kulliis aswaajtooda iyo caruurtooda iyo ehelkooda iyo dariskooda iyo walaalahoodba ugu noqda tusaale wanaagsan, allahna ka dhigo u jiida jannadii ay gacanta isu qabsadaan, cilmiga isla dalbadaan, kitaabka ilaahay isla daraaseeyaan iyo sunnadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ku wada noolaada. yacni farah inay maaragtay maalinta jimcadoo kale saacadda u dambaysa reerka inaad ku baraarujiso, war qur-aanka akhriya, war tasbiixsada, war suuratu ikhlaas, suuratu qul walle, war qarsiriyadii jannada ku dhisa, war maaragtay wardiya nabiga calayhi salaam ku salliya calayhi salaatu wasalaam. maalintaas maalinta inoo ku nabigu u yiri waa maalinta maalmihiina ugu khayrka badan ee igu salliyo salligayga badiya calayhi salaatu wasalaam. inaynu khayrka u jiidno, inaynu ku baraarujino layna ka rabaa, aynu u noqono maaragtay kuwa khayrka u horkaca. marka akhwaatii nafteydii tiinaba maaragtay khayr baan u rajaynayaa, ilaahayna hayna asturo gabdha saalixaad oo dayibaada oo raggooda dhul u noqda, ee raggoodana ay ilaahay iyagana cir allah inoo ka dhigo. yaa dhulka waa ogtay faa'iidadu leeyahay, kuwaas allah inoo ka dhigo hooyooyin wanaagsan oo maaragtay duceeya, oo aswaajtooda u duceeya, aan u duceyno aswaajtaa loo duceeyo, ilaahay inuu khayrkeenna iyo khayrkooda is aadiyo, ilaahay jacayl iyo xubbi isu keen dhex dhigo quluubteena, quluubtooda alla isu keen dumo. caruurta sidoo kale u duceyno, inu duceysano, inu ammaano, u duceyno, waa jecel yihiin raggu arrintaasna. yaa khayr allah si allah inoo barakeeye, ilaahayna inoo wanaajiyo. inta qoysaska arrimo iyo khilaaf dhex taagayana bogaada burcada allah isu mariyo, allahana islaaxiyo, allahana maaragtay hagaajiyo, ilaahayna nabadgelyo iyo khayra ku dabaalo, ilaahayna maaragtay cawradeena cawrada islaamka allah astiro, wanaageena allah isu muujiyo, xumaanteennana allah kala qariyo. maaragtay intaas inta ayaan ilaahay hooyooyinkeena wallahi sidaa aynu sadaqadana aynu ku dadaalno gabdhow, guriga aakhiro aynu qurxino, maanta aynu joognaaye ceelasha, masaajida, masaakiinta, agoonta kulli aynu maaragtay aynu wax ku bixino, aynu dadkana cawradeenana aynu ku mashquulno, cawrada bini aadanka aynu ka mashquulno, dembi dhaaf badana in la weydiisano sidii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku dardaarmay inaynu wax sadaqayno, iyo inaynu maaragtay gabal timiraba haatay inaynu yaraysano, naarta iskaga xijaabno, iyo inaynu maaragtay digriga ilaahay badino, istikfaarta badsano, maaragtay dadka xuquuqda ina kulana ilaahay maaragtay waalidkana loo dadaalo, dariska loo dadaalo, ammaan la siiyo walaalayaal, dariska ammaana la siiyo, walaalaha ammaana la siiyo. haween haddaynu waliba nahay aynu kitaabkeena iyo wardigeena iyo khayrkeena iyo sadaqadeena aynu ku mashquulno, diinta ilaahay aan barano, maraan kitaabka ilaahay isaga akhrisanayno, maraynu baranayno, maraynu tafsiirkiisa baranayno, inta aad taqaanid qur-aanka tafsiirkiisa baro, maraynu maaragtay siiradii nabigeena calayhi salaatu iyo saalixiintan iyo dayibiintan aan ag fadhino baranayno oo la noolaanayno. ninba ninkiisa waay siduu nabigu u yiri calayhi salaatu wasalaam, almar-u maca man axaba yowma alqiyaama. dadkaas ilaahay macooda inu jecelnahay, inu jeclaano, adduunyaya ina mashquulinine, aakhiro inu ku mashquulna, adduunkana inu ka jeesana caruurtii aakhiro, siduu cali bin abi daalib yiri allah ka raali noqde, war caruurtii aakhiro noqda, ha noqonina caruurtii adduunka. caruurtii aakhiro allah ina ka dhigo, caruurtii adduunka inaga iyo ehelkeena iyo aswaajteena, caruurteena iyo waalidkeena iyo ehelkeenaba iyo walaalaheena iyo muslimiintaba
ilaahayna ka dhigo caruurta aakhira caruurta adduunka allahna kama dhigo. الحمد لله رب العالمين. وحي خيرا كلها الله فمن الله سبحانه وتعالى. وحي أنجفنا نفتي لي شيطان اللي الرسول نبرئ كيهين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.